شفيع الخلق في يوم التنادي تعالى الله من أحذاك فضلا فكنت المصطفى يا خير هادي أحبك يا رسول الله حبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوة الأعزاء، برنامج كيجي أنكسو قادن جرني شخصيات إسلامية مهمة وغير مشهورة. ما أنتم حنكسو قادن دونا حلقة صحابي كم إذا صحابة رسولك رضوان الله تعالى عليهم وجليل صحابي قاسي وحوية وحال هذا عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه. سيدنا عتبة wuxuu ka mid yahay dadkii saabiqiinta ahaa oo waqti hore islaamay, waa qofka toddobaad ee soo islaamay ayuuba ahaaba. Wuxuu ahaa reer Maka, qabiil ahaan reer Maazin qabiil la yiraahdo ayuu ka dhashay, laakiin wuxuu xaliif la ahaa reer Cabdishams ama reer Nawfal. Ibn Hajarka wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa al-Isaaba fi tamyiiz as-saxaaba labada midkood buu ahaa. طيب يعني مثلا wuxuu ka tirsanaa Quraysh, laakiin waa dadkii hore oo waqtigii hore islaamay buu ahaa. Cutba bin Ghazwan radiyallahu ta'ala anhu wuxuu ka mid ahaa dadkii u haajiray Xabasha sanadkii shanaad ee hijriga, kadibna ka soo laabtay. Markii la soo laabtay oo de hijradii kaleeta ay dhacday, dadkoo dhan uma sahlan in hore laga haajiro oo de kufaar Maka ma ogolayn. marka asagu dadkii horay ka haajiray kuma jirin. markii ay nabiga iyo saxaabadu nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo saxaabada kale ay haajireen ee Madiina la degay hal sano ay joogeen, kadib ay bilowdeen ghazawaadkii iyo sariyooyinkii nabiga kaleey salaatu wasalaam. sariyadii ugu horeysay ee uu nabigu soo diro kaleey salaatu wasalaam, Ubayda bin al-Harith bin al-Muttalib radiyallahu anhu ayuu ahaa ninkii hogaaminayay. calankii ugu horeeyay ama liwaagii ugu horeeyayna nabigu ninkaas ayuu u xiray. marka ciidan muhaajiriin kaliya ayay ahaayeen oo ansaartu lama socon. ilaa ansaarta nabigu ma rabin inuu marka hore dagaal geliyo, sababtoo ah baycadii ayaa waxay ahayd inay Madiine ku difaacaan sida carruurtoodii haweenkooda u difaacayaan, laakiin ayaga in hadda dagaal la geliyo heshiiskii hore kuma ay jirin. marka Cutba bin Ghazwan iyo Miqdaad bin Camr radiyallahu ta'ala anhu Maka ayay joogaan, waana muslimiin, laakiin ma ay haajirin oo duruufta u saamix weyday. xaaladooda marka qofkii hadduusan haajirin dee gaaladu war badan kama hayaan. islaamnimadii buu ka laabtay, qaar ka laabtay wayba jireen, laakiin ay raggan islaamnimadooda kama laaban. waxay sameeyeen marka sariyadan markay gaaladu maqleen way soo aadeen. ciidan uu hogaaminayo Ikrima bin Abi Jahl ayaa soo aaday oo labada ciidan meesha isku hor yimaadeen. gaalada kufaaru Maka ka soo kacday ayaa labadan soo raaceen, Cutba bin Ghazwan iyo Miqdaad bin Camr radiyallahu ta'ala anhu. waxay sameeyeen marka ujeedada u soo aaday waxa weeyaan inay meesha ku tagaan. marka labada ciidan isma dagaalamin oo si unba maartay madaxa u kala qaadeen, meesha dagaal kama dhicin. marka laakiin labada nin ayarba inta ka soo carareen bay ciidanka muslimiinta u yimaadeen. sidaas ayay maartay marka Madiina ku tageen oo halka ay ku joogeen. Sayyidina Cutba bin Ghazwan radiyallahu ta'ala anhu wuxuu ahaa de Badr wuu xaadiray, mashaahidii oo dhan iyo dagaaladii nabigu u galay oo dhanna wuu soo xaadiray kulligood. marka waa dadka saabiqiin al-awwaliin la yiraahdo. waxaa dhacday marka xilligii dambe oo Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu uu khaliifka ahaa, futuuxaadka ay bateen, dadkii oo dhan ay jihaadka aadeen, ayaa waxaa dhacday Sayyid Umar habeenada ka mid ah ayuu arrin ku soo dhacday. dhinacaas Faris ayaa mar walba marka la xoreeyo meelaha qaarkood ayaa dhabar jabin uga imaanaysa ciidanka. marka meel bay ka soo sheegan jireen la yiraahdo Ubulla, magaalo la yiraahdo. magaaladaas waxay ahayd marka saadka oo dhan baa u yaalay, meesha dee laga fangareeyo oo ama hubka ama maartay raashinka iyo waxa dhan ciidamada reer Faris looga diro. marka Sayyidina Umar wuxuu go'aansaday in magaaladaas la qabto, maaha inaysan xal lahayn arrimahani, laakiin
dadkii oo dhanba waxay jiraan meelay jiraan madiina dad badan ma joogaan waxaa loo baahan yahay qofkii hogaamin lahaa ciidanka meeshaas aadaya habeen dhan buu ka seexan waayay sidina cumar arrinkaa ka fakerayay markii dambe ayuu farax waxaa la yidhi waa helay uu la soo booday cutba bin ghazwan ayaa ku soo dhacay ninkan de dadka saabiqiinta horu ka mid yahay dadkii nebiga la soo jihaaday calayhi salaatu wasalaam oo ghazwo kasta oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la soo socday waa dee qof laisku hadlayn karo oo la hubo wey oo u yeeray wuxuu yidhi marka ciidan badan lama arko ciidamadii o dhan meelaha xuduudaha jiraan xoogaa dhowr boqol baa sayidina cumar soo aruuriyey iyo naago yar iyo xaaskiisii ku jirto wuu la dardaarmay siduu dee saxaabada kale ula dardaarmi jiray taqwada ilaahay waxyaaba fara badan ayuu kula dardaarmay waa baxeen waad la yaabaysaa dowladda islaamka ee weynaatay furus iyo ruum iyo de guulaha waaweyn ka gaartay dadka jihaadaya xaaladahay ku nool yihiin mararka qaarkood la yaabaysaa meel bay tageen meel markay tageen dhexe ayay waxay cunaanba waayeen bal ciidan dhan oo raba inuu dhul soo qabsado oo soo jihaado wuxuu cunaba aan haysan laakiin de iimaan iyo qawi ah ayay leeyihin marka war bal waxaan cunaha naloo raadiyo yiri oo amiirkii ciidanka waxbaa la raadraadiyey waxaa lasoo helay laba wax oo sida dee kintaal camal ah oo midna ay timir ku jirto laba kiish camal midna miro yaryar ay ku jiraan dee timirtii waaba la yaqaanaayo mirihii waa la fiiriyay miro yaryar oo diir le oo waxay yidhahdeen marka mirahan sun weeye na kugu talagalay cadowgu inuu nagu baabi'iyo marka balayaan la taaban saasaa lagu tashaday meeshaasaa la dhigay iyadoo meeshii la joogo layskana gaajaysan yahay ayaa faras fardoodii ka mid inta mirihii u tegay buu cunay markuu sidaas dhacday ayaa waxaa la yidhahda hadduu farasku bal fiiriya oo hadduu dhinto faraskan markaa dee hala bireeyo adi faraskii waa dhiman waaye faraskii waa dhiman waaye marka waxaa la sameeyey gabar baa waxay tiri war shayga hadduu sun yahay waa la karkariyaayo markaa de suntu waaba ka dhimanaysaa amaan fiirinaayo wixii waa la kariyey qobkii wixii baa ka baxay waa la bisleeyey waa la dhadhamiyey wax macaan bay noqdeen waa iska cuneen de bismillah yidhahdeen markii ay cuneen de waxaana lagu noqon waaye faraskiina waxba ku noqon waaye iyagina waxba ku noqon waaye way iska tageen oo dib baa waxaa laga ogaan doonaa mar dambe shaygan inuu yahay waxa bariiska loo yaqaano bariiskan aad aragteen oo makhaayad walba markaad tagtid waxa ugu horeeya oo lagu yidhaahdo maxaa lagu siiyaa bariis baa yaalla la leeyahay ayuu ahaa laakiin dee carabahoyu markaa may aqoonin bariiska lama aqoon laakiin dhinaca fariska way yaqaaneen wuxuu yidhi marka waa lasoo baxay magaaladii baa la yimid agteedii ciidanka la haystaa waa ciidan yar magaaladuna magaalo xasiin ah wey oo difaaceedu adag yahay ciidamo 100 kun ku dhow baana jooga saadkii reer furus oo dhan baa jooga dhowr boqol oo qof ugu badnaan 600 see loogu furanaya magaalada yani mararka qaarkood waxaad la yaabtid ayaad ku arkaysaa maaragtay diinkan dadku markay sida uu yahay u qabsadaan ilaahay nasriga waa siinaya in tansurullaha yansurkum haddii aad maaragtay ilaahay u gargaartaa ilaahay uu idin garaanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nusirtu birucb waxaa la igu gargaaray cabsi oo cadowga maaragta wuuba cabsanayaaba dadka mu'miniinta oo muslimiinta way leeyihiin haddii ay dee jidka nebiga qaadaan way calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marka khidtuu keenay cutba bin ghazwan radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi maadaamay dad yar yihiin gabdhihii la socday mid walba calan buu u dhiib fardahoodii iyo ciidankiina way soo baxeen gabdhihiina gadaal baa inta la sifo oo la kala fogfogeeyey ayaa calamo tirada ka batay loo dhiibay boorka ciyuu yidhi marka ciid buubiye ayagiina way ka soo fardahoodii intay soo qaateen ciidankii marka gaaladii maxay moodeen
waxay moodaan intan yara soo socotaana inay tahay de muqadimo ciidanka kasoo hor socota ciidankii weynaa ee boqolaalka kun ahaana uu midkaas yahay soo socda waa dhowr gabdhood waxay ciid buubinaysa magaaladii waa cabsatay way isdhiibtay maba dagaalaminba furayaashii bay keeneen waxay yidhaahdeen ciidamadoodina meesha ka carareen waxay yidhaahdeen hanala nabadgeliyo annagu dagaal ma rabne sidaas ayaa marka lagu xoreeyey magaaladii khatarta ahayd ee muslimiinta hadba looga soo duulahayay ee dhibka badnayd al-ubullah ayaa la yidhaahdaa khitadaa uu keenay cutba bin ghazwan radi allahu tacaala canhu ayaa maaragtay magaalada lagu xoreeyey kadib ciidankii uu ka kaxeeyey wuxuu sameeyey meesha la yidhahda basra waa ninkii ugu horreeyey oo sameeya basra waa ninkii ugu horreeyey oo masaajidka basra dhisa radia allahu tacaala canhu markaa kadib ayuu wuxuu yidhi dee nolosha lagu nool yahay futuuxaadkii baa iska batay nicmadii baa badatay wuxuu yidhi haddaad arki lahaydeen buu yidhi anigoo ah qofkii 7aad ee soo islaam iyo waxaan ku noolaan jirnay mar baan waxaan cuni jirnay buu yidhi caleenta geedaha bes markaasaa bashimuhuna dilaaci jireen haddeertaana waxaasoo marka ma jeclaysan asagoo arrimaha yani adduunyadan iyo waxaan sayid cumar buu u yimid madiina wuxuu yidhi shaqadan iga jooji ma rabo iga jooji sayid cumar waa diiday sayid cumar dadka waa wanaagsan hadduu iska daayo yaad ka dhiganaysaa madax waa dadka ilaahay ka cabsanayo oo ammaanada leh oo caqliga leh oo nebiga la soo shaqeeyey alayh salatu wasalaam haddaad ma jirto yidhi aniga miyaa keligii liigu daynhaya hawshaan soomaaliya dadkii fiicnaa siyaasadda waa ka baxsan yihiin oo ilaahay ka cabsanahay oo aan khiyaamada wadan dadkii aan waxay danaynhayaan la arag oo diin danaynayn oo dadka danaynayn oo dalka danaynayn ayaa maaragtay siyaasaddii noogu jira iyagiiba u tartamaya qofku kharash ba waxaa lagu bixinayaa siduu ama xildhibaan ku noqon lahaa ama wasiir ku noqon lahaa ama madaxweyne kharash diinteenuna waxayba qabtaa qofka hadduu waxaan raadsado oo yidhaahdo anaa talinayo oo inaan looba dhiibinba dadka ka cararaya loo dhiibo sida cutba bin ghazwan radia allahu tacaala canhu marka wuu ka diiday markaa haddii de amiirka warkiisa lama diidi karo amiirulmuminiinka wuu soo laabtay ilaahay buu beryey ilaahay rabbi idil buu yidhi oo adduunyadan dhan ba iga wad hadday sidaa tahay oo bes dee jidkii intuu kusoo jiray buu ratiga uu saarnaabuu ka dhacay oo halkaasuu ku dhintay radia allahu tacaala canhu waa shaksiyad qaali ah oo muhiim ah oo jaliil ah oo maaragtay laakiin in badan oo dadka ka mid a aysan aqoonin sayidina cutba bin ghazwan radia allahu tacaala canhu qudwo ayuu noo yahay iyo kudayasho wajazakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh شفيع الخلق في يوم التنادي تعالى الله من أحذاك فضلا فكنت المصطفى يا خير هادي أحبك يا رسول الله حبا